Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Go For Podcast. Mowduuca maanta aan yahay waa mowduuc aad u muhiimsan run ahaantii oo nolosha beddelaya. Dhirta ku jirta run ahaantii salaada subax. Ma ogtahay in barakada maalintaada ay ku xidhan tahay sida aad u bilowdo subaxdaada? Dad badan waxay raadiyaan barako, nasiib iyo guul, balse waxay iloobeen in furaha ugu weyn uu yahay salaada subaxa. Haddaba, aan isla fahanno maanta 4 sir oo salaada subaxa run ahaantii oo qof walba u baahan yahay inuu ogaado. Haddaba, qodobka ugu horreeya, salaada subaxu waa furaha barakada noloshaada mudane iyo marwo. Salaada subax waa bilowga maalintaada, waa sida aad qalbigaaga u furayso. Nabigeeni sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, qofkii 2 ragcadood ee subaxa tukada waxay ka fiican tahay dunida iyo waxa ku jiraba. Haddaba, qofkii subaxa tukada ee kaca noloshiisu run ahaantii waxay ku bilaabi doontaa barako. Haddaba, way ka fiican tahay qofkii hurda ee run ahaantii sii jiifa. Wuxuu helayaa caajis iyo culays maskaxeed. Haddaba, marka aad tukato subaxa, waxaad run ahaantii helaysaa run ahaantii ku xidhaysa naftaada Allah ka hor intaadan xiriirka adduunka bilaabin. Inta aad bilaabin xiriirka adduunyada ayaa run ahaantii waxaad bilaabaysaa xiriirka Allah ayaad run ahaantii ku xidhaysaa. Kadib baad run ahaantii xiriirkii adduunka aad u soo jeesanaysaa. Haddaba, qodobka labaad, subaxdu waa waqtiga run ahaantii raxmadda iyo ducooyinka la aqbalo. Haddaba, inta badan ducooyinka ugu run ahaantii aqbalaadda badan run ahaantii waxaa laga helaa saacadaha hore subaxa. Qofkii run ahaantii u soo jeeda waqtigaa kaca salaada run ahaantii kadib iyo ka horba barya, wuxuu run ahaantii galayaa waqti raxmad iyo run ahaantii aqbalaad ducadiisa laga aqbalo. Haddaba, marka dad badan ay run ahaantii ay hurdaan, ay jiifaan oo Allah run ahaantii uu soo dego ayaa i baryaya si aan uga aqbalo. Waqtiga dadka ay hurdaan daba ay kacayaan si ay Allah wax u weydiistaan waa waqtiyaasha run ahaantii sirta ku jirta. Salaada subaxdu waa furaha run ahaantii naftaada nadiifinaya, qalbigaaga run ahaantii dejinaya, ay dareemayso run ahaantii naftaadu rajada run ahaantii inay run ahaantii ay soo dhowdahay. Haddaba, qodobkeena saddexaad waa salaada subaxu waxay keentaa degenaan iyo qorshe maalin oo cad. Haddaba, qofka subaxii tukada wuxuu helaa degenaan iyo tamar run ahaantii aad u iimaaniyada. Wuxuu maalintaa run ahaantii firfircoon yahay. Maalin kasta oo u diyaarsan yahay run ahaantii inuu qorshe sameeyo. Niyad wanaagsan waa labada shay aan ka arka run ahaantii. Qofku inuu run ahaantii qorshe samaysto, niyad wanaagna wax ugu fiican weeye. Haddaba, salaada subaxu waa sida run ahaantii waxay kaa dhigaysaa run ahaantii noloshaada mid run ahaantii niyad wanaag iyo run ahaantii firfircooni ku jirto. Haddaba, haddaan soo gudubno qodobkii ugu dambeeya afraad, salaada subaxu waa calaamadda cibaadada dhabta ah. Waxaa lagu gartaa run ahaantii salaada subaxa qofku inuu yahay qof aad u cibaadaysta. Waa astaamaha lagu garto. Waa run ahaantii tijaabo la gartay run ahaantii cibaadada dhabta ahi, sababtoo ah waa waqtiga run ahaantii ay hurdadu dadku u fiican tahay ay ku jiraan iska raaxaysan hurdaan ay adag tahayna inay kacaan weysiistaan ay salaada yimaadiin. Waa waqtiga lagu sheego run ahaantii inay tahay salaada subaxu. Waa calaamadda lagu garto run ahaantii qofku inuu yahay cibaadada u liima karaya. Nabigeena wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, salaada subaxa iyo cishaay waa salaadaha run ahaantii ugu culus munaafiqiinta. Waxay ka tahay labada salaadood cishaa'iga iyo salaada cishaa'iga iyo salaada subaxu waxay yihiin waa salaadaha ugu culus munaafiqiinta. Haddaba mudane ha ku biirin munaafiqiinta, ku soo biir mu'miniinta oo tuko salaada subaxa iyo salaada cishaa'iga. Qofkii run ahaantii subaxii tukada xitaa isaga oo daalan wuxuu run ahaantii muujinayaa jacayl run ah oo Allah run ahaantii u hayo. Barakada dhabtahay waxay run ahaantii bilaabataa marka aad muujiso dadaal iyo daacadnimo xilliga run ahaantii ugu adag tahay.
Haddaba waxaan soo gaarnay gunaanadkii mawduuceena waa mahadsanid fiican u dhageysatay. Maanta waxaan baranay salaada subaxu ay tahay furaha barakada, raxmadda, ducada run ahaantii waqtiyaasha ducada la aqbalo, degenaansho in laga helo iyo qorsho run ahaantii maalinlaha ay kuu sahli karto cibaadada run ahaantii dhabtaha iyo daacadnimo inay tahay. Haddaba qofkii subaxdii tukada noloshiisu waxa ay iftiimaysaa sida run ahaantii qoraxda oo kale u soo baxdo